السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaan walaalahayga qaaliga ahow, waxaan idinla wadaagayaa insha Allahu tacaala qiso ku dhacday qayrlaawihii qaabdarrada la doonay qayrqabtadii qaadirkeed ku xirneyd. Waqtiga yaanan kaa qaadine ku soo dhawow qisada. qisadan waxaa ka sheekeynaya sheekh la kulmay saaxiibka wiilkii qisadu ku dhacday. sheekhuna wuxuu leeyahay ilaah baan ku dhaartaye qisada tani waa mid dhab ah oo maahan khayaal iyo mala awaal. waxay ku bilaabatay sidan: waxaa ii yimid wiil dhalinyaro ah. wuxuu igu yidhi, shiiqow, wax la yaab leh ayaan arkay, wax maskaxdayda ka weyn ayaan arkay, waan rumaysan waayey ama kaag iyo yaab. haddaba shiiqow, haddaan yaabkaasi wax kaaga sheego, wiil saaxiiba ayaan lahaa. wiilkaasi maalin inagoo isla soconna ayuu gabar jidka maraysay indhaha la raacay. dabcan waxay ahayd gabar asturan oo xijaaban, balse wiilkii gabadhaasi ayuu aad uga helay. wuu raadiyey, wuxuu raadiyaba wuu helay. wuu la hadlay oo wuxuu ku yidhi, waxaan doonayaa inaan xiriir kula sameeyo, ee sideed u aragtaa? wuxuuna la doonayey qurun iyo qaabdarro. wuxuu qaaday waddooyinka qalqalloocan ee ibliis jeexay. waa waddooyin ruuxii qaadaba uu dhihi doono ba'ayay oo hoogay, alla maxaan ka soo doonay, maxaan dembi badan galay, maxaan xumaan ku ballaartay, maxaan baarigii i abuuray beri hore ugu toobad keeni waayey. alla waddooyinka shayddaanku xumaa, khayr la'aan badanaa oo qaab xumaa. aan qisada ku laabtee, wiilkii wuxuu yidhi, yarkii saaxiibkayga ahaa gabadhii ayuu jacaylkeeda ku waashay. mar weliba wuu raadiyaa, mar weliba iyaduu daneeyaa, mar weliba wuxuu doonayaa inuu la kulmo, balse iyadu waxay ahayd gabar aad u dhowrsoon. ma ahayn gabar bixbixid badan, ma ahayn mid suuqyada wareegta. nafteeda bay qiimayn jirtay, xishoodkay qadarin jirtay, oo qowlkeeda ama qosolkeeda lagama maqli jirin qoyska deriska ah. maalin maalmaha ka mid a ayuu gabadhii sikadiisa kula kulmay. hadallo aan fiicneen, qowl aan fiicneen ayuu ku yidhi, waxaan doonayaa inaan kulanno, waxaan rabaa aniga iyo adiga bis inaan israacno, inaan gaar isla noqonno, inaan isla sheekaysanno. howlo dheer ayaan kaa leeyahay gabar yahay, ayuu ku yidhi wiilkii. dabcan wuxuu ahaa wiil xumaan doono ah. wuxuu doonayey gabadhan cafiifadda ah ee dhowrsoon inuu sharafteeda ka dhaamo, mustaqbalkeeda ku ciyaaro, maankeeda iyo caqligeedu wuxuu qaadan karinna uu qurux uga dhigo. balse allah ayaa ka badbaadiyey. waxay ku tiri, alle subxaanahu wa tacaala ka baq. warkiiba intaa ayay ku ekaysay. wuxuu yidhi wiilkii, saaxiibkay baa maalin ii yimid isagoo faraxsan, aad u faraxsan oo dhoolla caddaynaya, mar qoslaya. markaabaan waxaan ku idhi, war saaxiibow, maanta waad faraxsan tahaye maxaa laguu soo sheegay? markaabuu yidhi, gabadhii saaxiibtay ahayd ayaa dhimatay. waan yaabay buu yidhi, oo maxaad ku qoslaysaa oo la farxaysaa? soo maahan inaad murugooto, maxaa yeele qofku waxay ahayd qof aad mustaqbalka leedahay. markaabuu yidhi, saaxiib, waxaan doonayaa inaan maanta ka qaato wax ay nolosheedii ii diiday. markaabaan idhi, war maxaad ka wadaa? war maxaad ku hadlaysaa? waan dareemay inuu xumaan rabo. waxaan idhi, ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baq. waan waaniyey oo qabtay. markaabuu iska kala tuuray, wuu dhaqaaqay. saa waxaan is idhi, bal dabagal, halkeebuu u socdaa si aad xitaa u celiso hadduu qalad sameeyo. waan daba kacay. suu u sii socday buu soo gaaray meel qabriye ah. sakiin ayuu wataa. waan ka soo daba degdegay, waan qabtay oo soo jiiday, balse inta ii kala tuuray ayuu sakiintii la soo baxay oo ii hanjabay. wuxuuna yidhi, haddaad arrimahayga soo faragashato ama aad dhankayga soo aaddo, waa ballan, sakiintan ayaan kugu dildilaaci doonaa. markaabuu dhaqaaqay oo dhankii qabriga aaday. wuxuu bilaabay inuu qabrigii qufo, ileen hore buu u ogaa halka lagu duugay. qabrigii ayuu qufitaan ku bilaabay. kadib gabadhii ayuu soo saaray. sakiintii ayuu bilaabay inuu karfanta ku jeexo. dhinac markii uu ka jeexay ee uu rabo inuu marada dhanba dilaaciyo, ayaan hal mar arkay isagoo gariiraya oo cabsanaya, geesaha daydayaya oo aad u gariiraya. waan la yaabay. saa sakiintii uu gacanta ku hayay baa ka dhacday. inuu iska daba wareega ayuu bilaabay. dhulka ayuu ku dhacay. waa uu kacay. soo dhaqaaq ayuu maagay. mar kaliya ayuu dhulka si xooga ugu dhacay. waan la yaabay. dhankiisa ayaan soo aaday. saa waan taabtay oon ku idhi, hebel, balse naf kumaba jirtaba. dhulka ayuu ku dhacay. waan naxay, waan yaabay. inaan qayliyo ayaan damcay. waan soo cararay aniga oo naxsan. bartaasi ayuu ku dhintay. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. wuxuu doonayey inuu xumaan iyo sino ku sameeyo gabar miskiin ah oo cafiifada, kaaga darankee haddana ah mayd aan naf ku jirin. intuu qabrigii ka soo bixiyey ayuu doonayey inuu xumaan la sameeyo, balse maxaa ku dhacay? alle subxaanahu wa tacaala kuwa daalimiinta ah
dulmi falayaasha alle subxaanahu wa tacaala wuu u sugaa balse markuu qabto alle subxaanahu wa tacaala dulmi falayaasha alle subxaanahu wa tacaala wuu qabtaa allah jalla wacalaana qabashadiisu way adag tahay ilaahow naga badbaadi xumaan wiilkii wuxuu yidhi shiiqo waxaan rabaa arrintaasi aan arkay xitaa inaan ka toobad keeno waxay ahayd wax mucjiso ah waxay ahayd wax la yaab leh haddaba walaalayaal alle subxaanahu wa tacaala ha naga badbaadiya khaatimada xun oo alle subxaanahu wa tacaala ha nagu dilo khaatimada wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nagu dilo khaatimada wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala gabadhaasi cafiifadda ah ee jirkooda dhowrtay ayuu ka ilaaliyay xumaantaasi uu kaasi ku fali lahaa alle subxaanahu wa tacaala ayaa ilaaliyay gabadhaasi maadaama intay nooleed ay nafteeda iyo sharafteeda ilaalisay iyadoo middaa ku dalbanaysa raalli ahaanshaha alle subxaanahu wa tacaala ilaahow qaatumadeenna wanaaji yaa allah oo naga badbaadi inaan qaatumo xun ku dhimanno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu